wanaagsan oo wacan dhammaantiinba waa taariikhtii taxanaha ahayd ee Maxamed Siyaad Barre qaybteedii shanaad. dhacdooyinkii haddaba dhacay intii uu talada waddanka hayay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre ee u dhaxaysay 1970 ilaa 1986. aniguna waliba Barqiye oo aan soo koobay ayaan halkan idinku soo gaarsiin doonaa. 20 Oktoobar 1970 wuxuu Jaale Siyaad ku dhawaaqay in Soomaaliya noqotay shuuci. 5 May 1971 Jaale Siyaad waxa uu xiray qaar ka mid ah raggii ugu sarreeyay kacaanka oo uu ku jiro Salaad Gabayre oo markaa ahaa ku xigeenka Maxamed Siyaad Barre. 21 January 1971 waxaa la dhisay gudidii qoridii afka hooyo. 1972 waxaa la qoray af Soomaaliga. 16 February 1974 Soomaaliya waxa ay ku biirtay Jaamacadda Carabta oo markaa gudoomiye ka noqday Maxamed Siyaad Barre. 12 January 1975 Jaale Siyaad waxa uu soo saaray xeerkii qoyska isaga oo simay dhaxalka ragga iyo dumarka wuxuuna yiri sida tan: rag yaa waa inay simayeen dadka joojin la joojiyo oo la xaqiijiyo oo muran la'aan laga dhigo dadka caalamiga inay isku xaqiiqeen horta xaalku meesha usla socda ka weeye waxaan jeclaan lahaa dumar haddaad tihiin dumarka Soomaaliyeed inaad fahamtaan يعني ميدون iska yimid ma aha waxa wata hanti wadaaga wata raasmaaligu ma wato rag iyo dumar kale. 23 January 1975 waxaa la laayay culimo ka hortimid xeerkii sinaanta dhaxalka. July waxaa dhacay dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya. 9 Abriil 1978 waxaa fashilmay Afgambi lala damacsanaa Jaale Maxamed Siyaad Barre. waqtiga waxaa la toogtay qaar ka mid ah kuwii Afgambiga isku dayay oo uu ku jiro Korneyl Maxamed Cismaan oo hogaamiye ka ahaa Afgambiga. May 1986 madaxweyne Maxamed Siyaad Barre shil gaari ayuu ku galay wadada isku xidha Muqdisho iyo Afgooye. madaxweynaha waxaa madaxa ka soo gaaray dhaawac culus, feeraha qaar baa burburay. waxaa loola cararay isbitaal ku yaala dalka Sacuudiga la socda qaybaha dambe haddii eebba idmo insha Allah.